gudoomiyaha ururka samafalka walaalaha gobolka Ndoolo mudane Maxamed Cabdirasaaq Mursal oo warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV xafiiskiisa ugu waramay ayaa sheegay in deeqa kala duwan ay gaarsiiyaan qoysaska danyarta ah ee hayntooda dhaqaale hooseeyo iyo waliba dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaana carabka ku adkeeyay in barnaamijkan uu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee ururka walaalaha Ndoolo ugu jiro taageerida dadka danyarta ah gaar ahaan kuwa xaaladooda dhaqaale aadka u liidato gudoomiyaha ururka samafalka walaalaha Ndoolo mar aanu wax ka weydiinay aasaaska ururka samafalka iyo waliba waxqabadkiisa iyo qorshayaasha u qorsheysan sanadkan ayaa sheegay in ururkan la aasaasay horaantii 2021 oo ay ka soo wareegtay ku dhawaad 4 sano waxa kale oo intaas ku daray in ururka samafalka walaalaha Ndoolo ay yihiin dhalinyaro si iskooda isku xilqaamay garab istaaga dadka danyarta ah isla markaasina gaarsiiya deeqa kala duwan iyagoo kaashanaya walaalaha muxsiniinta qurba joogta iyo waliba ganacsatada ururka samafalka muddo sanadkii sanad ayuu shaqeynaya waxaa la aasaasay December 2021 bishii koobaad ilaa ay haddana uu shaqeynaya runtii ururku waxyaabo waxqabad kala duwan buu qabtay oo wuxuu aasaasan yahay waxa loo multi purpose waxyaabo kala duwan oo fara badan buu qabtay sida haday noqoto biyo dhaaminta raashin qaybinta iidsiinta ari qaybinta xilliyada arfooyinka waxyaabo badan qabtay haddaan ku horeeyo waxqabadyadii u dambeeyay aan soo qaato kuwa ugu muhiimsanaa waxaa jiray konton qoys oo on gaarsiinay shandarwooyin bilihii soo dhaafay sanadka bilowgiisa gaafo dad xubnaha ku barakac xubnaha gaafo IDP gaafo yan gaarsiinay 30 qoys wax ka faa'iiday 30 qoys shandarwooyinka kanaacada maadaama fatahaad biyuhu ay xawiyaan ay saameeyeen sidoo kale 40 qoys on ayagana ka soo kala xulnay IDP-yada sidoo kale IDP-ga roobda ayaan gaarsiinay raashin noocyadiisa kala duwan oo xilliyada inta badan aan xoog ku saarno Ramadaanka kaleento waxyaabaha xawiyaan dadka danyarta aan uga faa'iideyno sidoo kale qayb waxa ka ah barnaamijka iidsiinta oo ayagana waxa weeyaan garab socoto oo xawiyaan caruurta aan heli karin maalinta farxadda inay la qaybsadaan caruurta kale aan isku dayna ayadana inaan aan uga faa'iideyno xawiyaan aan iidsiino waxaan iidsiinay oo u qaybinay lacag dhan 275,000 ayaan u qaybinay caruur aan ka soo kala xulnay IDP-yada magaalada Wardheer aan ka soo kala xulnay runtii kulli waxqabadyadu waa waxa weeyaan inta badan waxaan diiradda aan saarnaa dadka nugul su'aalahan dadka aan iidi karin dadka xaween raashinka aan heli karin nolol maalmeedka aan heli karin dadka dabka dansan yahay sidoo kale waxaan qaybinay ayadana xilliyada arfada u dambeysay oo kale 40 neef oo ari ayaan qaybinay ayagana waxa ka faa'iideystay IDP-yada magaalada Wardheer sidoo kale waxaan qaybinay diriiska ardada oo dhameystiran agabyada waxbarashada oo dhameystiran haday noqoto buugtii qalamadii iyo uniformkii oo u qaybinay 30 arday IDP-ga roobday waxqabadyada hadda ugu dambeeyay bilihii hadda u dambeeyay sidoo kale 25 September 2025 iyo 12 October hadda labada bilood hadda u dambeeyay waxaan qaybinay agabka roobka iyo agabka shandarwooyinka oo isku xawiyaan laba kala face aan u kala qaybinay qayb content face koobaad content qoys oo danyaraan u qaybinay shandarwooyinka u qaybinay face ka labaadna isla content qoys oo kaleento dadka danyartan ayaguna u qaybinay waxaan u qaybinay shandarwooyinka celiya kanaacada waxaan ka faa'iideystay xubnaha waxaan 200 oo qoys ba ka faa'iideystay oo danyar ayaguna saasle ka soo kala xulnay IDP-yada magaalada Wardheer kulli barnaamijku waxa weeyaan waa barnaamij inta badan uu ku tiirsan yahay dad meel hay'ad fandhigaraysa ma laha laakiin waxa weeyaan dadka aan ka soo urur dadka qurba joogta ganacsatada qalaha dawladda waxyaabo badan aan ka soo ururna dana dib aan ugu celinaa dadka danyarta iyo dadka hayntooda hooseyso sida dadka baahiyaha gaarka qaba marka waxqabadyada hadda ugu dambeeyay waxqabadyadaas intaas ugu muhiimsan barnaamijku waa barnaamij ballaaran oo waxqabadyada waxa kamid ah sidoo kale waxa garab socda dadka danyarta gaari curyaanada u baahan oo ayagana dadka gurguurinayo inta kanaanka anaga aan u raadinaa
hadday noqoto inaan anagu usoo iibino iyo hadday noqoto inay dawladdu naga caawiso iyo hadday noqoto inaan ka helno qurba joogta kolley waa barnaamij noocaas aan ku wadnaa